السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحاب تقالي قاسيتهن ما في عنتين ما شاء الله تبارك الله. وحن إلهي النوغة بريان مركز طبع عفماد يعمل دير عبادة الصوبان. الحمد لله شكر الله. وحن ملاينا يا وحن إن شاء الله إن هذا عفماد قبتين سنة يا عفماد قبو انت نجا جرنا على نوع عافي انت نجا naga dhimatana allah raxma raxiiminaya leenahay inta caafimaad noysato anay kamid ahana waxaan leeyahay allah u siyaadi aamin ya rabbi. maanta waxaa imaanay tembareeriga amba ii sheeg librariga sirraal naqda amba waxaan imaaday biblioteega saa naqan anaga Netherland meesha buugaga lagu akhrisado caruurta iyo cid kastaba buugaga ay yaalaan maaragtay biblioteega la dhaho ayaan imaaday maasha allah ani gabadhayda waxa maadaama fasax la geli rabo buugaga ayaan rabaa inaan uga qaado. buugaga waa ka qaadan kartaa maartay 2 week 3 week soo haysan kartaa iyo inta rabto ka dambana 2 week ka dambe 3 week ka dambo waxaad sameynaa waad soo celinaysaa amba ku kala qaadanaya amba asigiyaad aad hadana ka dhiganaysaa new oo macnaha aad waqtiga u dheereysanaysaa. marka maasha allah iskuuladii la xirxiraa waa inaan buuga u soo doonay buugaga maaragta halkan ka qaadanaa. hadda buugaas meeshan waad u jeedaan buugaga waa kala nooc waa kala fasalkay tahay cunug kasta fasalku yahay iyo qof walba oo maaragtay waxa uu ka rabo ayuu ka helayaa. marka kuwa yaryar kuwa waaweyn dadka waaweyn cid kasto ayaa meeshan buugaga ku akhrisato waa meesha maaragtay xaafadayna aduu noogu yaalo biblioteega buugaga laga qaato maasha allah. maanta soo baxnay alxamdulilah ka dambana waxaan soo doonana buugagan. marka buuga iskuuladiya xiran iskuulkiya la xiran 2 week hadda buugan waa ujeedaan meesha leenkan kore leenkaas kore waa groupka afraad group marka group ay macna isku xiran yihiin cunuga galaaska uu ku jiro galaaska koobaad galaaska labaad galaaska saddexaad saas waay marka buugi oo ku faca amba macnaha galaaskiisa oo yaqaanay barnaayo ayaad u qaadaysaa cunugaaga. hadda dadka dhan waaba yaqaanaan hadda laakiin maasha allah tabaaraka waxaan leeyahay hablooyaan la caajisin hala soo baxo ilmaha la soo wado halkan hala keeno cabaar inta lagu la akhrisado hadday buug tahay haddii ay maaragtay ay tahay geedkan kaloo ii sheeg la yiraahdo busalka hadday tahay hadday buuga tahay waqti sii inta la joog biblioteega la joog ha akhrisado cunuga intuu ilmahaas kala arkaa wuxuu maaragtay ayagana wax akhrisanayaan asagana hamiya gelaayo wixiisoo isna akhrisanaa maasha allah tabaarakallah. marka hooyo adana juhdi geli koleyba hooyaa tahay ma hagranaysid waxaan la hadlaa waa hooyooyinka ayaan la hadlayaa ani aabbo maba la hadlaayo aabbo haddii uu maaragta keenana waa alxamdulilah waa wix laga rabo xaqa u lahay. hadda downa keena hooyaa maaragtay inta hooyooyinka lahan maaragtay noo daayo hooyo. marka waxaan ku leeyahay halkan haddaad timaado ilmaha keenso ha caajisin insha allah. waa dareemi karaa daalku iska badan yaha laakiin haddana daalkaada waxaa iska ilow cunugaada kaaga muhiimsan berka maalin oo wax maaragtay barashada inuu ku adkaanin. marka caawi oo wix uu rabo ka caawi oo lasoo tag oo soo wad oo keen adiga halkan hadda adiga soconin cidna kuma caawi karto hadda adiga caawin cunugaada cidna ma caawi karto. Soomaali waxay ku mahmaahdaa howlninkeediba hagarooya iyo horumari karo ayaa lagu mamaahaa. hadda waa run howlninkeeda hagarooya iyo horumarka ilmaha hadda adiga caawin macallin ma caawi kara kaligiis macalinka wuxuu ku leeyahay cunugan waa unsaan laakiin adiga xoogaa la rabaa inta awoodo xataa luqadda dada aqoonin inaad maaragtay meelaha laga yaqaan dadka yaqaan iyo dadka ku caawi karo iyo meel bug ayadoo maaragtay ayada wax la soo baray cunuga asaab wax la soo baray marka meelo maarad ka sii akhrisado buugaga kala nooc kuwa ka helaya jiro ilmaha way iska caajisaan guriga day joogaan filim kaliya fiirsanayaan ma rabaan wax barasho laakiin horta filimka soo dhaafi kasoo kaxay inta keen ka dambe asiga cunuga qaar iska rabo sawiradaas oo kale inuu iska daawado soo u leeyahay sawirka daawo oo hadduu akhriska u bilaawdo cunuga marka dambe niyadoo yeelanaa akhriskii kiciskii ayuu dareemaa uu ku farxaa markuu arko oo kelmadihii kiciyo uu ku farxaa markaas wuxuu isleeyahay maaragtay hore u sii socdo rabaa markaasoo kale laakiin intuuna waxba aqoon cunuga xoogaa waa caajisaa. marka adaa laga rabaa inaad buush garayso meeshaas maaragtay group meeshan oo dhan waa ciyaalka buugooda
inta xataa qolkan way ku aqrisadaan way fariistaan waa qol loogu talagala asiga xataa in lagu aqrisado maasha allah tabaarakallah marka waxaan ku leeyahay hooyo macaan soo soco soo baxa ilmaha soo kaxeey intaas wuxuu u arkayaa maaragta meel in la geeyey oo wax kusoo aqrisaday guriga uu ka caajisaa filin unbaa horyaalo filinka unbuu iska shidanayaa hadda horumarna nooma ahan filin daawashadiisa horumarku ma ahan kaaman yeelayo cunuga marka waa inaad ku mashquulisaa inuu baxay meesha tago buuga usoo qaadaa qaar oo jeclaana qaarna ma jeclaana qasab maa inuu wada jeclaado kow ka hel asiga usoo qaad marka kow ka hel usoo qaad inta kaleeto sida busalkoo kale iyo waxaasna meeshiidaaba ha ku aqrisado hadduu rabana ha qaato naftirkooda busalka xataa wuu fiicay maskaxda ayuu soo dhisaa si laysugu aadinayo iyo sida ood u dhisayso marka wuxuu keenaa inuu cunugaas maskaxdiisu ay aqli kaliya uu noqdo oo aqliga wax ka fahmo dadkan meesha iskama dhigin waxay u dhigan ujeedo ayay ka leeyihiin oo aqliga ayaa ku kobcayo anaga waana kanaha busalka usoo qaada hadda busalka ayay samaynaysaa ayadaa daadisaada ayadaa samaynaysa waa kan waa samaysay saasay ka dhigtay maasha allah tabaarakallah jag ayay ka dhigtay waa isku keentay waxaasa la rabaa in laysku keeno oo cadba meel laga keeno marka hore waa la kala firdhinaa waa la daadinaa ka dambana waa laysku soo aruurinaa marka maasha allah tabaarakallah waa isku samaysay way isku soo dhistay way isku keentay meeshiisaan isaga celinaynaa hadday rabtana way qaadanaysaa laakiin iyada maaragtay inay rabto ayaa muhiim ah marka buugagna waa u qaadaya hadduu alla idmo insha allah bidmillaah kariim asxaabteyda waxaad samaysiin marka hadduu alla idmo ilmihiina bibliotega geeya buugaga ha kasoo akhrisato cunuga bahalkan busalka hadoo aqaato aqaato guriga ha u qaato hasoo dhiso hasoo sameeyo ha qaldo ha saxo maskaxdiisa marka dambe u barto qaladkiisa marka dambe inuu saxo oo wixii qaldan oo saxan karo asiga oo wax fahmi karo oo maskaxda inay shaqaysaa la rabaa oo lagu shaqaysiinayo maskaxda soo hadhow wax fahmo marka maasha allah tabaarakallah waxaan idin leeyahay insha allah bidmillaah kariim videoga hadduu idin soo gaaro subscribe like haddaa igu cusub tahay please and please subscribe ii saar like ii saar ii daawo haddaad igu cusbayn oo hore iila joogtana khayr allah ku siiyo like ii soo saar iina sii share garay asxaabtaada insha allah si ayaguna ii maaragta like iigu soo saaraan aad ayaa idinkaga mahad celinaya garab istaaga ii garab taagantihiin iyo wada socodka aan wada soconno aad ila joogtaan aad ayaa idinkaga mahad celinaya insha allah waxaan idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu